بسم الله الرحمن الرحيم. halkan waa quljeed degmada quljeed gobolka Awdal aad iyo aad ilaahay nabadii maanta ayuu noo bilaabay way bilaabatay maanta roobka waa naga hayna waa shuux wali waa shuux insha Allah waxaan waxa weeyaan waa jinkadaha biyo ka yimidoon wali aad noogu wada daroorin laakiin daruurtu hadda dhulko. السلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سو دواء صاحب عيال مركز تاكو سجنتين وحلقي هذه وداك جرنا جودها بورركي يقض بدي جوا وينا دولك الصومالي ده يا عالم كينتي سكر. سو دواء صاحب يقض بدي برامج كنا عوا كده قايد ونا ما ندكوها إنه وحكم ده. سنسال علادات أو بلارن لقد دري ما يدقان كوقدرية. ومدون يكون دبيا كتير سنسال علادات يدد على دي نبضة. اللي جوا يدقان كسو جودها بس هو قري. ده كله. roobka guga ayaa ka curtay qaar ka mid ah deegaanada Soomaalida iyo Soomaaliland haddaba waa kuwa deegaanadaas roobka maanta uu helay waa sidee jawiga roobeed ee gobolka Togdheer iyo deegaanada bariga Soomaaliland xaaladda bariga dhexe dagaalkii ka socday oo waji cusub caawa yeeshay iyo dawlado hor loo ku soo biiraya haddaba waa kuwa dawladahaas islaamka ah ee ku soo biiray dagaalka iyo waa nooc wajiga cusub ee dagaalka bariga dhexe caawa u yeeshay. soo dhawaad saaxiib beelo qodobadaas iyo kuwa kale ayaynu barnaamijkeena ku wadaagi doonaa inta ka horeysay sidii caadada inoo barnaamijkeena baa ku martii hal caawiyo haddii aan caawinayn muuqaalka meel dheer gaarsii waa bir rabadaan dad hayso waxaaga wax kala bax sadaqadu bisha birakaysan rabadaan wala bajibaaranti waa 10kii dhexe ayaynu ku jirnaa waxaan ku sii siqaynaa 10kii dambe khayrka lahaa isaguna ee la bajibaarnaa ka waran adigoo soomay oo cibaadaystay oo quraan akhriyay oo sadaqadna la baxay miyay kula tahay in Ilaahay subhanahu wa ta'ala baryada aad barido kugu qadinayo waa maya haddii awlaadu ka bugto haddii camalku kugu xun yahay haddii sharci ka xayran yahay haddii culays kale ku haysto haddii naftaadu caafimaad u baahan tahay haddii awlaad yar saxaaro u baahan tahay sadaqa wax la bax idan taa wax ku darso sadaqadu weeye sadaqaduna yaraan iyo badnaan male kelmadda wanaagsan hadalka wanaagsan taageerada wanaagsan intuba waa sadaqad. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمان وحن سلام يا أمد الإسلام كمقعيق وحمد حسن وحن إذن وذا وربحنا لدينك هي ماريا مرحبا برابشة والله صوف فريستي وحيسوق عليه واحد دون لبكن يافر بقل ماريا حالة الوفي عندي ما شاء الله إنك صيح مدي مكي غد عضي ماريا وحا اللي يقول دي هندي وحلقة قبل كراسن مرحبا برابشة ذيك وذاقي dhammaan waxaan u duceynayaa intii Maariya adduunka soo gaarsiisay 2400 ummadda islaamka meel ay joogaan baan u duceynayaa waa maalmo khayr ah lagu jiraayo Ilaahay waxaan uga baryaa Ilaahay miisaanka xasanaadka inuu ugu daro Ilaahay qof kasta muraad buu leeyahay muraadkiisa maxsanaha midigta ka saaro maalin adag baad dambeysay Ilaahay inuu miisaanka xasanaadka ugu daro ummadda islaamka mar koobaad iyo mar labaad waxaan idinka codsanayaa walaalaha islaamka meel ay joogaanba Maariya caafimaadkeeda in laga qayb qaato Ilaahay baa caafimaadka bixiyay waxa la sheegay in hindiyo wax laga qaban karo ummadda islaamka waxaan jecelaystay ummadda walaalaha inay Maariya laga qayb qaataan caafimaadkeeda oo hindiyo wax laga qaban karo waayahay deegaanka waqdariya ee gobolka Sanaag waqooyiga gobolka Sanaag muddo ku barnaamijyadan aad ugu soo noqnoqday sababtoo waa xog xasaasi ah dad badan wax naga weydiiyeen deegaanka waxa laga dareemayaa sansaan colaadada suurtagal tahay xilli kasta in dagaal ka dhaco sidoo kale waxa guud ahaanba guul daraystay dadaaladii nabadeed ee deegaanka Puntland iyo Somaliland bay ka wadeen waxaanad moodaa in qoladii waqooyi bari riyadoodii ahayd dagaal ka dhaco deegaankaas ay u sawiran tahay ama ay u hirgelisay waa bil Ramadaan deegaankaas nimankaas nabad geliyay daraka riday markii hore deegaanka Somaliland baa kala xukuntay labada beelood walaalaheed deegaanka ugu dambeynna beel kamida oo garab ka helaysan nimanka huwanta ah baa weerarka soo qaaday deegaanka waxa laga dareemayaa saan xogta ku helaysan saan colaadeed goob joogayaal aan la xiriirnay waxay noo xaqiijiyeen saacad kasta ay suurtagal tahay in xabadu afka baxdo haddaba xalay waxaan idin kula wadaagay barnaamij halkan allaha Somaliland baa waqdariya gacanta ku haysay ciidanka qaranka arrinta markii aan u guurgalay waxa ii soo baxday inaan gacanta aan magaalada lagu haynin ciidamada nimankii kale gacanta ay magaalada ku hayaan marka debay la fidiyaa ma wacnee
wixii doonaba waxa weeye hadhow tola ha dhacaan waxa weeye dagaal ha dhacaan dub looga qabso sax laakiin imka saacadan idin la hadlayo sida ilaa laba qof aan la xidhiidhay xaqiijiyeen goobta waxa gacanta ku hayay nimankii huwantaaha ee soo duulay waxaana suurtagal ah in dagaal bartaas ay ka dhacaan dadka deegaanka ayaa aad uga diyaar garoobaya dadka deegaanka ayaa aad uga diyaar garoobaya in weerar gaadma ay ku soo qaadeen kooxaha huwantuna halka waxay ku soo daabulayaan ciidan lixaad leh oo farihiisa leh ay ku soo daabulayaan waayo muuqaalkeena waa ka cudur daarayna xaqiiqtuna waa in deegaankaas aanu gacanta Soomaaliland ku jirin waayahay inta iyada deegaankaas aan kaga soo noqon qaar ka mid ah ganacsatada Soomaaliland ayaa dugtay shidaalka qiimaha shidaalka kor u qaaday xalay weynagii wadaagnay in ganacsatadu ay ka faa'iideysanayaan dagaalka barqa dhexe oo aan weli maciishada aan saameyn ku yeelan hase yeeshee ganacsatada Soomaalida ayaan idin sheegay in aan cid uga horeeynin waliba kuwa Soomaaliland sixir bararka Hargeysa iyo deegaanada kale Soomaaliland qaar ka mid ah waxa laga soo sheegay dugtay shidaalka qiimaha shidaalka lacag lagu daray oo halkii litir ba ku shilin oo fuulay 5 litirna 5 ku baa ku biirtay 10 litirna 10 ku baa ku biiraya waxay ku sameeyeen xilli wasaaradda ganacsiga bulshada Tallaaila 10 lahaa wasaaradda ganacsiga iyo shirarkan ay la galeysay go'aamada ay la galeysay wax saameyn ku yeelan maayo nimanka ganacsatada oo nimanka Ilaahay mooyaane cid Ilaahayna kama baqaan cid ay iska eegayaan ma jirto marka uu durtaba dagaalka oo socda 4 cisho waxa uu dhaqaaq ku yimi qiimaha shidaalka ayuu isbedel ku yimi maxaa ku xiga ma bariiska ku xiga mise maryaha ganacsatada Soomaaliland waxay ka faa'iideysan doonaan dagaalka dhacay waxaana guud ahaan laba jibaari doonaan mid aan macquul ahayn bay laba jibaaraya maciishada kala duwan ay laba jibaaraya taa meel ku qora aniga taa xalaan idin sheegay caawana waxaan idinka markhaati noqotaan in durtaba qaar ka mid ah ganacsatadii ay qiimihii shidaalka wax ka bedeleen waayahay maxay ka dhiganta mee go'aamadii iyo heshiiskii ay la gashay wasaaradda ganacsiga xalay waxaan idin sheegay in guud ahaan go'aanadaasi aanay hirgelin waxna aan laga qaban karin oo cid allaaleeyo cid ay ka shidaal qaataan iyo cid maamusha ganacsatadu oo ay u joojinayaanba ama wax iskaga haleynayaan aanay jirin waaye dawooyinka shidaalka maryaha cuntada intuba kor bay u kici doonaan intuba waxay qaali garoobi doonaan dhibel waxay su'aashu tahay dagaalku joogsado ma soo noqon doonaan ma soo noqonayaan weligeed shay kacay shidaalka mooyaane inta kale shay kacay oo dib loo celiyaa ma jiro Soomaaliland halkaas aad loogu xidhay Ibrahim Sall wanaaya aas lagu jooji baraarayna xukuumadda iyo sidii ula tacaasho laakiin waxaan idin sheegayaa ama aan anigu idin baraarujinaya in fashilka koobaad arintaas xukuumadda uu kaga imanayo aanay kantarooli karayn sabab iyadaan dagaalba dhacaynin oo balaaya baanay jirin bay xukuumaddu u taag weyday oo ay kantarool kari wada ganacsatada iminka maxaad ka sheegi markaas iminka oo marsiya la helay waaba tiyo la xaqalatay buuri waayahay deegaano ka mid ah deegaanada Soomaalida ama gaar ahaan dawlad deegaanka Soomaali galbeed iyo deegaano ka mid ah Soomaaliland ayaa laga soo sheegay in roob helay qaar ka mid ah dawlad deegaanka qabri bayaxaynu haabano malaynay deegaankaas hadaan khaldanay roob baa helay baa roob guga oo sida muuqaalada lagu soo gaaraya dhanka deegaanka Baki isagana waxa la leeyahay gobolada galbeedka Soomaaliland isagana roob baa helay baa la leeyahay waa sida ay leeyihiin muuqaalada ay nagu la wadaageen dhanka kale jawiga guud ee gobolada Togdheer ee aan ku suganahay iyo qaar ka mid ah gobolada Soomaaliland saddexdii cisho u dambeeyay wuxuu lahaa jawi roobaad haddana daqiiqa gantaalaha aanan harsanayn oo daruuro waxaan ahayn aan qiir iyo ceeryaam ahayn daruuro indho roobaad ayaa la harsanaya cirkuna wuxuu leeyahay diilo qurux badan ilaahu naga soo jeebi ilaahu wadu bana waraabi kara cidnimo waraabi karta naga soo jeebi ilaahay oo bini aadan baridiisa aan ka maarin naga soo jeebi ilaahay oo raxmadaada adiga na qaboojin kara ilaahu naga soo qabooji ilaahay oo noolahaagi ilaahu xayawaankii ilaahu ummadii kale ilaahu dhamaan waa haraaday kolay quraanco ku tahay ilaahu waa haraadan ilaahu aduba naga soo jeebi kara ilaahu naga soo jeebi qabala amiin soo qor in ilaahay si degdeg ah inoo soo furto hadda kale wuxuu oran jiray nimankii booyada wati ninkii daldalaamada bixiya daruurta cirka ah soo dii nimanka booyadaha oran jiray hadda laakiin waxaan leeyahay ninkii daldalaabaha ku duntay ilaahu roobka noo dii ku dunto waayahay taasna waa warbixinta roobka iyo deegaanadan oo saadaasha cirku ay aad u qurux badan galabta waliba foore ay daruuro ahayd ilaahuna soo furo bariga dhexe maxaa dhacay xaalkii bariga dhexe uu ka sii daraya duqaymihii waa la jibaaray Iiraan
waxba lama yaharin sidii Israa'iil u garaacis wadamada khaliijka u garaacis haddaba dagaalkii waxa madaxweynuhu waji cusub yeelanayo Mareykanku wuxuu safaaradiisa kala baxay Imaaraadka iyo wadamo kale oo khaliijka ayay Israa'iil safiiradeedii ka raratay taasoo muuqatay in isku dhac wadamada khaliijka iyo Israa'iil uu muuqdo dagaalka Mareykanka ku dhushay Imaaraadka waxa uu ka ratay sanad iyo military ka tahlay waxay waddamadii khaliijka Mareykanku ay soo culoobayaan oo Mareykanku wuxuu ka dhigay garoon lagu dagaalamo guud ahaan waddamadii khaliijka iyaga iyo Iiraan buu si wacan isugu garaacay isaga wali wax qasar ku dalkiisa ma gaadhin laakiin garoomada hubka cusub lagu tijaabinayo ee waxa weeye dhaca dhibaatadu ay ka dhacayso oo khaliijka laba qisood ayaa ku cusub dagaalkan maanta mid waa Israa'iil oo waddamadii khaliijka dhammaan safiiradeedii ilaa 4 waddan way yeedhatay taasoo colaad u muuqata iyo Mareykanka oo muwaadiniintiisa khaliijka kala baxay qodobka qosol kale la yaab kale ku soo kordhay waxa weeye Sacuudigu waa ki dhowr jeer hanjabay ilaa xalay lahaa waxbaan weeraray safaaradii Riyaad iyo Aagaas baa si wacan loo garaacay tiraba loo jeer Sacuudigu Iiraan u hanjabay labadaba waxaan ku si wacan bay u garaacdayo hanjabaadii Sacuudiga waxay kaga joogtay garaacis haddaba dowladda Pakistan oo ay saaxiibo dhow ahaayeen Iiraan ayaa mar runtii hanjabaad soo saartay waxaanay samaysay ay tiri haddii mar dambe Sacuudiga aad weerarto Iiraan ayaa ka jawaabay Sacuudiga iyo Pakistan waxay galeen heshiis nabadgeliyo ay wada galeen heshiis nabadgeliyo ay wada galeen marka heshiis amni ayay ku jireen oo ah in Sacuudiga Pakistan difaaci doonto haddaba mar haddii Riyaad maalinta saddexaad la garaacayo Pakistan ciyaarta waa soo gashay waxaana ugu hanjabtay Iiraan in haddii Sacuudiga weerar daba ay ku qaado ay iyadu ka jawaabi doonto haddaba Iiraan maxay samaysay Iiraan markii hanjabaadda ay soo baxday Pakistan markiiba haddana mar labaad Riyaad iyo safaaradii Riyaad iyo dhulkii diblomaasiyiinta ee haddana si wacan u garaacday caasimadii Sacuudiga way meesha qiiqaysa waa caasimadii Sacuudiga taas oo ka dhigan in Iiraan dhagax iyo indhaha iyo dabada intii ay basbaas marsato waxba aan arkaynin waxay taagan tahay nolol ma jirto cidna noolaan mayso maxay Pakistan daba ku jawaabi doontaa ilaa caaw ayaynu eegaynaa Sacuudiga hanjabaadiisa ayaa been noqotay hanjabaadda Ruushka hubna waa ku diriraa wali habar kuma dirin Sacuudiga macaamadaha iyo cigaalka iyo timirtu ku dagaalami doona oo diyaarsan waxba ma diyaarsan waayo haddaba qiso kale cajabay ku soo kordhay barka dhexe Qatar ayaa markii uu horeysay Iiraan weerartay oo duqeynaysa waxay noqonaysaa wadankii ugu horeeyay khaliijka ee ka jawaaba garaacista dalkiisa lagu soo qaaday waxaana diyaaradaha daroonta iyo gantaalo balastiga ay Qatar ku weerartay gudaha dalka Iiraan haddaba dagaalkan barka dhexe saddex waji oo cusub uu yeelanaya mid waxa weeye wadamadii khaliijka iyo Mareykanka isku dhacaya oo waddamadii khaliijku ay u dul qaadan waayeen waxay Iiraan ku sameynayso ee Mareykanku sabab u yahay iyo Mareykankii iyo Israa'iil oo ku dadaalaya inaanay guul daraysan wax kasta ay ku qaadatana inay Iiraan soo afjaraan solomon wajigaas maaha wajiga saddexaad waa wadamo cusub oo Iiraan weeraraya ku soo biiraya dagaal waddanka Pakistan Sacuudiga iyo Qatar ayaa ugu horeeyay weerarkii hore Israa'iil iyo Iiraan waxa ku soo biiraya wadamo kale oo wada Pakistan ay tahay waddan hubka nuclear-ka haysta waxay noqotay Iiraan iyo adduunka kale ee xaaladda imka ay maraysa xaalka barka dhexe ee si xumaanaya iyo guud ahaanba wadamadii khaliijka ee muddada dheer nabadda ku leeday ee saliidda iyo ganacsiga iyo baayac mushtarka iyo daaraha dhaadheer ayaa qiiqiisu muuqday imka arrintani saameyn ganacsi iyo saameyn isu socod iyo saameyn amni ay dunida ku keenaysa muxuu ku dhamaan karaa dagaalkan laba waji mid ku dhamaanaya Israa'iil iyo Mareykanka oo guuleysta oo gudaha Iiraan ciidamo geeya oo Iiraan meesha laga saaro oo la burburiyo oo qodob ku dhamaan kara qodobka labaad Iiraan iyo Mareykanka oo wada hadal gala taa bedelkeedana Iiraan ay guuleysato Iiraan hadda waxay ku dadaalaysaa inay sii jirto oo nidaamka hadda talinaya Khamenei uu sii taliyo Israa'iil iyo Mareykanna waxay doonayaan in meesha ay ka saaraan Khameneiga oo ay soo celiyaan taliskii boqor Shaah ama nidaamkii Shaah labadaas uu ku soo afgo'ayo marka hore dagaal kasto kale la bixiya ma soo afgo'ayo waxa ku soo afgo'aya labada daraf ee isaga oo mid guuleysto ma bil toddobaad maxay qaadan doontaa guud ahaan xaalka bariga dhexe balaaneega waddanka Pakistan oo isna ku soo biiraya dagaal saaxiib guud ahaan baytaas ayaan qumaneena caaw ku soo gabagabeynaa tan inuu ku tisma dhaafno salaamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakaatuh